السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحاب قيمها يقدرين تمضون أصحابي وحن مانتا عن ربائن عن كهدلو برنامجك أو برياهن ميدياها قبصدي تهاي برنامج كاس قبلي يو صدق هذا يان مانتا ربنا إن عن كهدلنا تاس تهاي أصحابي وحن ربا هدو أن لإدمو سيدا هذا وحن صورة قليل لما صورة قليل كرا aniga hooyadeyda hadii ayda diiday teeda maxaa subag miyaa okay waxaan rabaa isku videogeed inaan soo hormariyo ila daawatiin ka bacdi waxa jirta video oo sheekh umul la weydiinayo jawaabadaas uu bixinayo ka bacdi video walba waa dhamaysanaysiin marka dhamaysatiin ka bacdi ayaan rabaa inaan hadana aan soo galo bal wax yar ila daawada isla videoga inta guda galin asxaabay barnaamijka waxa uu qabsaday meediyaha waa wax waxay noqotay oo la yaabo asxaabteeda qiimaha iyo qadarinta badan bal clipka gabadha aan soo hooyadiina kama maarmayo adigina kama waxa jira wiilal qaar dumarkooda aan ka maarmin dumarkooda la culustayde oo si dhibaato isku heleen marka taa hadaanu aniga wiilkiiga maarmin do hooyadii guri haw kare waan soo booqana hooyadii bay noqotay do hooyadii guriga ibtila kuma hooyadii way ku noolaanaysaa waan ogol kama nafas qaadanayaan hooyadii in hooyadii guriga ku noolaato oo ma marayo iikaadi inaka adiga ku qaba uma fasax qaadasid in hooyada ay guriga timaado laakiin waxaad rabtaa inuu adiga fasax kaaga qaadayo ogolaasho hooyadii ana guriga ka masuula laakiin hooyadii inta doonta ku nool walaalahay baa ku noolaanay isaga fasax ugama qaaday kamana masuul aha reerkayga wixii imanaya wixii ka baxaya waay waxaana jeceshahay inuu ku ogolaasho hooyadii kaaga qaado hooyadii walaalkii haduu iman maxay ku duwan yihiin hooyada iyo isaga hooyadii furitaan baa sabab adiga hooyada maana dhibaatada lagu sheegay in sabab ka horta hadii la isku sheegayo hablahan TV-ga ka xishooni inanta hooyadeeda ma islaan ibtilaa way jirtaa oo inanta ninka ku diraysa laakiin marka aniga hooyadii ninkii igu dirasay kama qaadan hooyadii hadii khalad ku socoto hooyadii ninku kama qaldana baan odhanay adaa qaldan marka aniga hooyadii ninkii iguma diri karto hooyada inanta dhashana badanka hadii run sheegano inanta gurigeeda ma dumiso laakiin wiilka ina muxuu ahaa inanka hooyadii way dumisaa kadib waa ku siinaya okay ra'yigeeda asxaabay waa u jeedin tan naag lama dhigi karo waa wax bukan okay waxaan rabaa inaan ila daawatiin su'aasha isla weydiin doono sheekh umul ayaan rabaa inaan ila daawatiin sideedaba waxaan soconaynaa in la suurtageliyo aaday u xun tahay asxaabteedii qiimaha iyo qadarinta male oo ku xiran channelkayga Ganaana official asxaabay channelka dadku cusubtiin subscribe like comment-iga share fartanka balaaga furo asxaabay videoga hal share gareeya waxaan rabaa macnaha sheekada qabsatay meediyaha labadan bari daawasho wacan video shaqo marka taa hadaanu aniga wiilkiiga maarmin do hooyadii guri haw kare waan soo booqana hooyadii bay noqotay do hooyadii guriga ibtila kuma hooyadii way ku noolaanaysaa waan ogol kama nafas qaadanayaan hooyadii in hooyadii guriga ku noolaato oo ma marayo iikaadi inaka adiga ku qaba uma fasax qaadasid in hooyada ay guriga timaado laakiin waxaad rabtaa inuu adiga fasax kaaga qaadayo ogolaasho hooyadii ana guriga ka masuula laakiin hooyadii inta doonta ku nool walaalahay baa ku noolaanay isaga fasax ugama qaaday kamana masuul aha reerkayga wixii imanaya wixii ka baxaya waay waxaana jeceshahay inuu ku ogolaasho hooyadii kaaga qaado hooyadii walaalkii haduu iman maxay ku duwan yihiin hooyada iyo isaga hooyadii furitaan baa sabab waxa muhiim ah in loo daayo inanta guriga masuulka ka tahay imika odayaashan fadhiya waxaad moodo xogeen hablaha yara cadaadinayeen oo aragtidooda la yaabaneen ma ahayn aragtida qofka binaadamka la yaabo raygu qabo raygiisa loo tixgeliyo haduu ku qalday haduu ku saxsay marka waa in adna rayga la wadaagto marka kiisa xaw ku qaadanaysa isaga u tala ajnaatu tahta aqdam al-ummahat bu rasuulku joog ma sha Allah nabiga alayhi salatu wasalaam aga hooyaday buu jannada dhigay laakiin aad gabadhida mu dhigay weydii baad furaysaa sodon haday tagayaan gabadha hooyaday halka ku qaadi la voy kan jeelo kadin ka baxaysa doodaasi wiilasha iyo gabdhaha ay dhex taalo oo muslim baa mise waa gaalo waa muslimiin Soomaali ah okay nidaamka gurigooda maamula ama guriga ay ku hagaan ama ay isku guursadeen ma shareeca islaam baa mise waa mid gaalo waa shareecada islaamka waana dad muslimiin ah warku waa cad yahay marka hadaan labada jawaabood helay in iyaguna muslimiin yihiin guriga
sharcigii lagu dhisayna uu ahaa ka islaamka iyaguna gurigooda inay diin islaam ku maamulaan inta haddaan jawaabteeda helay jawaabta su-aasha jawaabteeda way caddahay guriga hooyadu waa hooyadii guriga aabuhuna waa aabihii guriga mid walbana xuquuq buu leeyahay walahunna mithlu alladii calayhinna bilmacruuf walilrijaali calayhinna daraja waa aayad qur-aan dumarku xuquuqda ay leeyihiin mid la mida lagu leeyahay ninkii xuquuqdu leeyahay mid la midaya xaaskiina leedahay ragguse hal darajay la dheer yihiin baa la yidhi oo aan loo sinayn darajadaasi maxay tahay waa darajada qawaamada waa guriga iyo hoggaankiisa waa midda aayadda kale Alle ku sheegay الرجال قوامون على النساء isaga ay tahay guriga mas'uulka koobaad ka ah isaga inay tahay inay reerkiisa iyo xaaskiisa xataa uu toosiyo marka gurigan ninka mas'uulka ah isaga oday ka ah hooyaduna waa hooyadii guriga wixii arrimaha ku saabsan wada tashi wa amruhum shura baynahum laakiin go-aanka gabadhamaysta ayaa leh marka la tashado odayga guriga iska leh laba awoodood oo simanna ma aha hadday laba awoodood oo siman noqon lahaayeen waa warka gaalada iyo sharciga gaalada gurigaasi ma dhisnaan karo waa ka ilaahay qur-aanka ku sheegay shay kasta oo jira laba awoodood oo siman hadduu ka dhaxeeyo ma jiri karo low kaana fiihima aalihatun ila allahu lafasadataa samadan iyo dhulkani hal ilaah inuu leeyahoo maamulo hal rabbi waxaa ku tusaya hagaagsanidii isku toosnidii iyo nidaamkii ay weligood lagu arkay bay ku socdaan hal jiha maamusha hadday laba jiho iyo ka badan maamuli lahaayeen way fasaadi lahaayeen suurtagal ma tahay hadda dowladdan ama dowladaha laba madaxweynoo isku awooda dowlad ma maamuli karaan ya shirkad laba manager oo isku awooda ma maamuli karaan maya waa wax badiiyo iska cad waaye guriga ninka oday ka ah hooyaduna waa marwo muxtaramaho waa hooyadii guriga hadday timaado su-aasha qaraabada hadday timaado qaraabada dhanka gabadha ka socotana guriga xuquuq bay ku leedahay gaar ahaan hadday waalidka yihiin qaraabada xagga ninka ka socotana guriga xuquuq bay ku leeyihiin gaar ahaan hadday waalid yihiin ma jirto wax la yidhaahdo gabadhuna qaraabadeeda xor weeyaanoo guriga firiga iyo gurigu waa u fasaxayay ninka qaraabadiisuna gaar ahaan hooyadii baa la magacaabay guriga marka la keenayo waa in xaaska idan la weydiisto ya oo hadday diidana maamada meel kale loo raadiyo ayu sharcin hada waa sharcigee waa sharciga kufriga iyo gaalnimada waay sharci kufri waay sharci islaam ma aha hooyada maamada guriga iskale ninkeeda hooyadii iyo aabihii gurigeeda idan weydiisan maayaan lianna ninkeedaba iyagaa iskale nabigeenu sal alla alay wasalam wuxuu yidhi anta wamaaluka liabiika nin buu la hadlayay wuxuu ku yidhi adiga iyo xoolahaagaba aabbahabaa idin leh hooyadu waa kasii xaq weyn tahay ya haddiiba ninkaagii la yeeshay oo hooyadii leedahay ya ninkaaga ciddii lahayd see baa guri loogu diidi isagii baaba la yeeshaye waa midda labaadee haddii adiga laf ahaantaada hooyada ah
waalidkii ninkan dhalay inta lagu afgaran waayo ay ku yidhaahdaan waryaa middan inama anfacayse fur waa lagu eryi marka hooyaan guri u diidi idan ha lay weydiisto guri kale ha loo kireeyo ay sharcin hada ay sharcin hada qaraabo goysnimo intaa leeg waxa laga hadlay haddana waa waalid waxa laga hadlo haddana waa waalid waaye qaraabo kale xataa hadday ahaan lahayd bacdu shari ahwar way isdhaami lahayd laakiin waalidkiibaa guriga loo diidiyo idan ha weydiisteen waa thaqaafo iyo dhaqan inoo yimid oo soo guuray waaye waa dhaqan la soo minguuriyey oo aan ahayn kii islaamka aanan ahayn kii bulshadeennu ay lahaan jirtay war miyaynu lahaan jirnay ma dhaqan waxaan lahaan jirnay hooyo meel kale ha loo raadiyo la yidhaah maya ama xagga xaaska ha ka timaado ama xagga ninka ha ka timaado hooyo gogasha ugu wanaagsan baa loo dhigaa cuntada ugu wanaagsan baa la siiyaa guriga idan ma weydiisato iyadaa iskale aabba waa sidoo kale ama dhanka xaaska ha ka yimaado ama dhanka ninka ha ka yimaado waalid baa idan weydiisanee adari dhaafi meel kale u kireen naagta sidaa qabtay in la eriyo waayo in la fiijiyo waayo taasi naag maaha xaas maaha haddayna waalidkiiba ogolayn oy gurigiiba ka sheemayso u diidayso xaaskaasi muxuu yahay ya malaha naag caddaan aad qabtaan naaga yurubiyaana maad soo guursateen gabadhaas soomaali maahaan u malaynay waxaasi dhaqan maaha la dhaqankeenna islaamkana maaha walaa dhaqan diinteenna ka soo jeedana maaha waalidku madaxuu saaran yahay xaqa ilaahay siiye waa xaqiisa midka ku xiga ma garat xoolahaaga waalidkaabaa iska leh alimaamu axmed caleyh raxmat ullahi wuxuu leeyahay xataa inuu baahidiisa xoolahaaga ka qaato keliya meehe xoolahaaga intuu qabto wax ka sadaqaysan karaa waalidku addoontaada kuu joogta buu waalidkaagu xorayn karaa isagoon idanku weydiisanay alimaamu axmed fi kitaab ilwarac buu saa ku leeyahay marka waa yaabay gabdhihii iyo wiilashii baa doodaya boqolyaha tiktoka ku jira un habeen dhaweyd ka hadlay ma kuwaasaa doodaasi dhex taalla hade kuwaasi waxaan u malaynaya waxaan ugu cudur daaraynaa islaamba kama warhayaanba dhaqan islaamna intooda badan kama warhayaan mushkilada haysata waxa weeye doodahan waxaa keenaya thaqaafada iyo dhaqamo kalea lasoo maqlay lasoo arkay markaasaa waxa weye guryihii islaamka la doonaya in lagu maamulo wax foolxun waaye nacam doodahan waa doodo lasoo minguurinaya wey telefishon ha ka dambeeyo idaacadi ha ka dambayso waa wax lasoo minguuriyey ummado kalea laga soo qaaday oo dood u dhex taallo soo ma markaasaa dhallinyaradii muslimka la dhex keenoo la yidhi doodan ka dooda war maxaan ka doodnaa wax jiraba meehe dhaqankanagiina ma aha diintanaduna ma qabto ma gaalaan nahay markaan ka doodayno hooyo iyo aabbo lama soo dhowayn karee bannaanka ha la geeyo ma gaalaan nahay mise muslim baan nahay su-aashaa in la weydiiye waayo telefishinka waxaa keenay ummadda dhex dhigayna waxaa loo baahay in la yidhaahdo war ma gaalaad doodsiinaysaan mise muslim baad doodsiinaysaan aslanba su-aashaasi inay timaadaa khalad ah wallahu aclam asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu asxaabta qiimaha iyo qadarinta mudan oo ku xiran channelkayga ganaana official asxaabay waa ujeediin meesha dood baa ka dhacday su-aashii la weydiinaya sheekh umarna waa ujeediin asxaabay marka labadan beri ee barnaamijkan aad u qabsaday midiyaha waa wax oo dadkii la yaabaan madaxa aan gelaynin waaye naagta naag wareersan waaye hablihii kale ayay haleynaysaa okay ka gudub waxaa kala rabaa inaan ka hadlo hablaha kale inaysan ku daysanin aysan raacin dumarka noocan camal ah maxaa yeelay dhaqankii oo allihiina abuurta keenay diinteena ahayd ayay wax ka bedelaysaa mana bedelmayso waa waxaana soconaynin qof hooyaday waa ii jooga amarkaama qaadanaya taadana guriga u ijaari ku leeda kolley ninkii garaadla wuu fahmi karaa asxaabteyda qiimaha iyo qadarinta mudan channelkayga ganaan official ku xiran waxaa idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu video dambe aan ku kulmi doono insha allah hadduu alla idmo asxaabay videoga